deeqda raashinka oo guddiga samata bixinta qaxootiga Soomaaliyeed oo uu qaybiyay dadka Yemeniinta ee ka soo qaxay dalka Yemen ayaa waxa ay ka timid hay'adda gargaarka Islamic Relief oo waxa ayna ka koobnayd bur, bariis, saliid, sonkor, caano, boorash iyo timir kaasoo loogu qaybiyay 50 qoys oo ah dadka Yemeniinta ee ku nool degmada Shibis ee gobolka Banaadir. qaar ka mid ah dadka ka soo qaxay dalka Yemen ayaa ka mahadceliyay deeqdaasi raashinka ay soo gaarsiiyeen guddiga qaxootiga Soomaaliyeed iyo hay'adda Islamic Relief Organization. كل شيء الحمد لله، ونشتي يعني تنفعونا أكثر من كذا مني بعد الجاي وإن شاء الله. شكرا. جمال حسن، نشكركم على هذا العطاء، ونتمنى يعني أن نستمر يعني منكم يعني الخير هذا كله. شكرا. xogayaha guddiga badbaadinta qaxootiga Soomaaliyeed Dr. Sakariya Maxamed Axmed Nuur Hurre oo ka hadlay goobta ayaa ka warbixiyay deeqda ay soo gaarsiiyeen dadka walaalaha ee ka soo qaxay dalka Yemen iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay. runtii aan ka qaybinayno oo aan siinayno raashin dadka walaalaheen ah ee Yemeniyiinta ah ee wadankoodu dhibaatadu ka socdo ee ka soo cararay ee wadankeena soo miciin biday. waxaana u qaybinaynaa raashin gaarayo 50 qoys aan wax siinaynaa. waxaana ka helnay hay'adda Islamic Relief oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayno garashadaas iyo inay macnaha dadkaas walaaleen ah ee dhibaataysan wax u gartaan. runtii raashinkaas wuxuu ka kooban yahay bur oo 15 kiilo ah, bariis oo 15 kiilo ah, sokor oo 7 kiilo ah, saliid oo 3 litir ah, timir oo 2 kiilo ah, iyo boorash oo 5 kiilo ah, iyo caano booro oo 50 gram ah. hay'adda Islamic Relief waa mahadsan yihiin. annaga ka guddi ahaan guddiga badbaadinta qaxootiga Soomaaliyeed waan ku wareejinay dadkii oo waa u jeedaan waa la siinayaa. runtii ma ka tareyso 50 qoys in raashin la siiyo, laakiin waa bilow fiican. marka waxaan leenahay walaalaha wax haysto hay'adaha islaamka ah qaramada midoobay. gudoomiyaha degmada Shibis ee gobolka Banaadir Axmed Muumin Axmed ayaa u mahadceliyay hay'adda Islamic Relief Organization iyo guddiga badbaadinta qaxootiga Soomaaliyeed deeqda raashinka ay soo gaarsiiyeen dadka qaxootiga ee ka soo cararay dalka Yemen. waxaan marka koobaad u mahadcelinaynaa guddiga qiimaha badan ee runtii gurmadka dadka ka soo barakacay Yemen, hadday yihiin Soomaaliya hadday Yemeniyiin yihiin u gurmanaya runtii, iyo sidoo kale hay'adda Islamic Relief oo maanta degmada Shibis xarunta jaaliyadda lagu soo dhaweeyay halkan jaaliyadda Yemen ka qaybinaya runtii raashin ilaa 50 qoys oo Yemeniyiin ah dadka walaalaheena Yemen ka soo barakacay dhibaatada haysata runtii loogu talagalay. waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa hay'adda iyo guddiga intaba sida ay xilka isaga saareen in dadka walaalaheena Yemen ka soo barakacay Yemeniyiinta